بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha aan joogo waxa waaye Masar waaye. Waxaan ka arkay geedkan aad u jeedaan ubaxa sameynayo oo shinnida ay ku dhex jirto. Shinni baa ku dhex jirta meeshaas haddaad u jeedaan. meesha dhanna waxa waaye shinniya biiwayso. marka geedkaan dhaqaaqa haddeer, laakiin haddaad u jeedaan waxa waaye dabeela imaatay. shinnida waa taas meesha ku dhex jirta. marka geedkan aan rabaa inaan idiin faahfaahiyo. geedkan ingiriiskan ku arkay, wuu ka baxa ingiriiska. asalkiisuse waxa waaye waddanka Australia. geedkan magaciisa waxaa la dhahaa calestamine. magac kalena waxay dhahaan bottle brush flower, yacni dhalada caanaha cunuga buraashka lagu dhaqo aa loogu magac daray. magaciisa cilmigana waxaa la dhahaa calestamine. geedkan wuxuu ka mid yahay geedaha ay shinnida aadka u jeceshahay, waxaana ka buuxo nectar. nectarkana waxa waaye wax aad iyo aad u mac oo ay shinnida qaadato ayna ka samayso malabka la isticmaalo. marka geedkan alxamdulillaah meeshaan aan ku helay maanta anigoo maraayo, waxaan dhahay waa qasab bahda shinniileyda in aan u soo duubo. wuxuuna sameynayaa allahul mustacaan miro aad iyo aad u fara badan. marka mirahan waa soo aruurini karaa geedkan ay shinnida jeceshahay, oona malabka laga sameeyo, oo ingiriiska xataa ka baxo oo la beerto. sidoo kale guryaha lagu quruxsadaa. haddeer xaafadaana lagu qurxiyey geedkan asiga iyo geedkan fiyooraha la dhahaayo oleander. geedkan sun waaye oleanderka la dhahaayo. oleander waa kana haa waa kana oleanderka ubaxiisa waa kana. geedkan sun waaye, laakiin geedkan waxa waaye geedka ay shinnida aad iyo aadka u jeceshahay. marka alxamdulillaah maanta intaan ka helay 2 geed aan ka baxayo meeshaan. shinnidana Masar oo saxaro sidaan bay u joogtaa, waana ag fadhiya haddeer, ma idhibayso, mana ka baqaay. tawakkal cala allah aan leeyahay. shinnida walow ay khatar tahay, laakiin haddaadan dhibaynin ayadana kuma dhibayso oo shaqadeeda bay wadanaysaa. marka maasha allah, geedkaas waa kanaa. bal ka warama haddii Soomaaliya lagu beero geedkaas, khaasatan ragga shinnida dhaqdo, hadday ma aragtay ay shinnida meelaha ay ku dhaqdaan ay ku beeraan. maadaama geedkan Australia laga helay, sidoo kale waxay ila tahay inuu yahay geed adkaysi badan oo ma aragtay u adkaysani karo waxyaabo fara badan sida oonkoo kale iyo kuleylka. Australia waddan qabow ma aha, waa waddan kuleyl waaye. marka allahul mustacaan geedkan waxaa la dhahaa calestamine, waxaana ku badan nectarka ku badan. sida ay ugu shamuuman tahay shinnidana waad u jeedaan. dhulkan saxarada sida ay ugu shamuuman tahayna waad u jeedaan. marka geedkan faa'iidadiisa waa nectarkaas lagala soo baxayo. marka muslimiinta Soomaalida waxaan u sheegayaa geedkan ha la beerto. haddeerna waxaa gacanta ii soo galay mirihiisa. waxaanoo dhan bil ka bacdi waxay isku bedeli doonaan miro. mirahaas waa ka gurani doonaa. marka haddaan ka gurto Soomaaliya, qofkii u baahan waa loo soo diri karaa mirahan. Masaraana ka helay meeshaan. haddeer uguma jeedi, allahul mustacaan, ma ugu jeedi waraabin. walow la waraabiyo meeshaan, laakiin waraabin uguma jeedi. saas darteeda shinnidii ay soo kortay, ay soo weerarin iga orod. qof saalimaan ahay, waa isdhiiba shinni yahay. marka waa kaas, waxaan waxay isku bedeli doonaan miro isku bedeli doonaan. mirahaas haddaan soo aruuriyo Soomaaliya waa la keeni karaa. waxaan rajeynay insha allah in aan Soomaaliya u soo diro mirahan ee shinnida aad iyo aadka u jeceshahay, eena malab fiican ka samayso oo la dhaho calestamine. waxaadna dareemi kartaa shinnida inay jeceshahay in kale
markay sidaan ugu shumuuman tahay shinnida markay ku shumuuman tahay ee aad iyo aadkana u isticmaalayso waxaad dareemi kartaa geedkan nafciga uu lahaani karo shinniilayda waxaa la dhahaa calestimon qof walba ma aragtay wuxuu ka dalbani karaa Amazon aniga masalan joogaa ubaxeeda waa heli karaa intaasoo noocee u kala baxdaa waxay noqotaa ilaa 5 mitir geedkan ilaa 5 mitir uu noqdaa dhererkiisa waxaana lagu hayni karaa meelaha caadiga waa lagu korini karaa sida ma aragtay dhirta waxa lagu koriyo kale waa lagu beeri karaa ayadoo aan aad u dheeraanaynin laakiin haddeer aniga way iga dheer tahay geedkan oo waa kana dhererkayga intaasuu la egyahay ayadana waxay sii soconaysaa intaan waa 3 mitir waaye 3 mitir ay gaaraysaa marka geedkan haddii si fiican loo nafaqeeyo ani waxay ila tahay geedkan nafaqada ku yar haddii nafaqo fiican la sii siini lahaa sidaan iyo si ka qurux badan uu noqoni lahaa marka geedkan ha lagu dadaalo oo shinnida ay jeceshahay oo aad iyo aadkana u quruxda badan guryaha lagu qurxani karo maxaa la dhahay beeraha oodaha ma aragtay loogu dhigani karo marka waa kaas geedkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh